sidee loo diyaariyaa khudbad guulaysata ama khudbad saamayn leh? Assalaamu calaykum dhammaan. Maanta waxaynu ka hadli doonaa sidee loo diyaariyaa khudbad guulaysata. Khudbad dadka taabanaysa oo fariintaada si cad u gudbinaysa. Haddii aad rabto inaad ka hadasho fagaare dugsi, mid jaamacadeed, masjid, aroos ama shir, fiidiyowgan adiga ayuu kuu yahay mid khaas ah. Waa muhiim qofku marka uu doonayo inuu dad ka hor hadlo inay noqoto khudbadiisu mid guulaysata. Haddii aad tahay arday u tartamaya ama arday inaad hogaamiso tartan ardayeed ku jira oo aad rabto arday inaad khudbada ka horjeediso, debate fiican inaad samayso. Haddii aad tahay qof shaqaale ah oo doonaya in khudbada iyo waxa uu jeedinayo presentation-kiisu uu noqdo mid guulaysta. Haddii aad tahay waxa weeye bulshada nooc kasta oo aad kaga jirto runtii khudbad guulaysata waa lama huraan. In ay khudbadaadu guulaysatana waxay ku xiran tahay inaad fahanto waxyaabaha laf dhabarka u ah ee khudbadaada ka dhigaya mid guulaysata. Ugu horeyn, ogow ujeedada. Qodobka koowaad ee khudbadaada ka dhigaya mid guulaysata waxa weeye ogow ujeedada khudbadaada. Horta khudbadaadu waa maxay ujeedadeedu? Maxay ka hadlaysaa? Maxay tahay waxa aad focuska ku saarayso? Marka ugu horeysa isweydii su'aashan muhiimka ah. Maxaan rabaa dadku inay ka faa'iidaan khudbadan? Dadku maxaan rabaa inaan u faa'iideeyo? Ma wacyigelin baa? Ma dhiirigelin baa? Mise waa waxbarid? Khudbadaadu maxay ku saabsan tahay? Dadka ma dhiirigelin baad kaga hadlaysaa? Ma waxbaad ku wacyigelinaysaa? Ma waxbaad baraysaa? Khudbadaadu waa inaad fahanto ujeedada guud ee khudbada. Haddii aadan ujeedo cad lahayn, khudbadaadu ma noqon doonto mid guulaysata. Waa inaad marka horeba xoogga saartaa, focuska aad saartaa khudbadaadu ujeedadeedu waxa ay tahay. Haddii laga casuumay madal xisbi oo kale, haddii aad kaga hadasho ka waran arrimo aroos ama arrimo kale oo aan khuseyn, waxa la yiraahdo qofkaasi waa qof qayr mawduuc ah. Mawduucii macnaha ka baxay way macnaheedu. Marka had iyo goor meesha aad ka hadlayso khudbadaadu waxa ay ku saabsan tahay, baa la rabaa qofku intuu bointiyeysto inuusan bointiyada dhaafin. Ujeedka meesha loogu casuumay, ujeedka khudbada uu jeedinaya ay tahay, waa muhiim inuu qofku uu fahmo. Qodobkaasi waa qodobka koowaad ee ka dhigaya khudbadaadu inay guulaysato. Qodobka labaad, markaad ujeedka fahanto khudbada aad jeedinayso nooca ay tahay, qodobka labaad ee muhiimka ah ee ka dhigaya khudbadaadu mid guulaysata waxa weeye fahamka dadka aad la hadlayso. Inaad fahanto yaad la hadlaysaa. Dadka aad khudbada u jeedinayso inaad si fiican u fahanto. Khudbadu waa inay ku habboon tahay da'da dadka aad la hadlayso. Heerka fahamkooda uu gaarsiisan yahay meesha aad joogto ee aad khudbada ka jeedinayso. Intaasba waa inaad ku xisaabtantaa oo aad fahansan tahay. Haddii aad la hadlayso dad waaweyn, dabcan khudbadaadu waa inay ku bareeskarisan tahay hadallo iyo wax markaa ay qaadan karaan dadka waaweyn. Haddii aad la hadlayso arday iyo dhalinyaro, waa inaad fahmi kartaa waxa ay doonayaan in lagala hadlo. Tusaale waxaad tahay arday jaamacadeed ama arday musharax ah oo raba inuu arday hogaamiyo. Waa inaad fahantaa ardadaadu maxay doonayaan, meesha aad ka hadlayso iyo meesha ardaad joogtaa, baahida ka jirta ee dadkani ay dareemayaan maxay tahay. Waa inaad boontigaraysataa. Waa inaad ka hadashaa dadku waxa ay doonayaan inay fahmaan. Waa inaad ka hadashaa. Haddii aadan khudbadaadu aysan saameynayn problem iyo dhib dadkan haysataa ama wax qofka aad la hadlayso saameyn ku leh, haddii aysan khudbadaadu aysan ku jirin, way adag tahay qofka inuu khudbadaaduna ay guulaysato, qofka aad la hadlaysana inuu si fiican kuu dhageysto. Tusaale, khudbada aad u jeedinayso arday kama dhigi kartid mid aad u adag ama erayo culus ma adeegsan kartid. Sababta cidda aad la hadlayso baa war marba muhiim ah. Tusaale, haddii aad macallin tahay, ardada wax u dhageyso luqadda aad adeegsanayso, terminology-da erayada aad adeegsanaysa waxay ku xiran tahay hadba cidda aad la hadlayso. Arday tusaale ahaan arday dugsi sare oo form 4 haddaad la hadlayso iyo arday labaad ama saddexaad haddaad la hadlayso, isku si wax uguma dhigi kartid. Isku si wax uguma sheegi kartid sababtoo ah mentality-gooda iyo maskaxda EQ-gooda kala duwan. Taasi marka waa muhiim. Marka aad khudbad jeedinayso, faham dadka aad la hadlayso, waxa ay doonayaan, da'dooda, heerka fahamkoodu gaarsiisan yahay, meesha aad joogto, waxa ay khudbadaadu problemka iyo dhibaatada ay xalinayso, waxaasoo waa inaad focus ka saartaa. Waa qodobka labaad. Qodobka saddexaad ee khudbadaada ka dhigi kara mid guulaysta waxa weeye samee qaab cad. Khudbadaada marka aad jeedinayso, qaabka khudbada aad iskugu xiraysaa waa inay tahay mid waadax oo la fahmi karo. Khudbad guulaysata waxay leedahay 3 qaybood. Khudbada guulaysata waa inay ka kooban tahay 3 qaybood ama 3 qaybood waa in laga helaa si khudbadu ay u guulaysato. Hordhac marka ugu horeysa. Hordhac inaad samayso. Soo jiido macnaha hordhac waxa weeye inaad soo jiidato dareenka dadka.
dadka aad la hadlayso dareenkooda inaad soo jeediso isla markiiba lama rabo markaad soo istaagtaba inaad hore khudbadda aad ka gasho waa inaad samayso huujku waxa weeye attraction dadka inaad soo jeedato dareenkooda qof baa taleefon ku mashquulsan mid baa hadlaya mid baa sheekeynaya dadka horta marka hore waa inaad soo jeedayso waxa aad ka hadlayso waa inaad u sheegto ujeedka laga leeyahay waa inaad u sheegto waxa aad macnaha hadafka waxa aad jeedinayso waa in dadku si fiican kula fahmaan marka waa muhiim tusaale waxaad maanta waxaanu ka hadlaynaa boqolkiiba 70 dadka dunida ku nool waxay ka cabsadaan fagaara ka hadalka maxay sababta uga cabsadaan qof kasta point hayay ama bog laga hayay baa taabatay dadku ku soo wada eegayaan sababta khudbadaada hordhaceedu waa sheegtay waxa aad kaga hadlayso waa inaad problem dadka haysta inay si u xalin lahaayeen aad u sheegayso marka waa muhiim marka aad attention-ka dadka iyo dareenkooda aad qabato qodobka labaad waxa weeye dulucda u sharax fariintaada si cad waxa aad ka hadlayso si cad dadka ugu gudbi si cad u sheeg adigoo aan leexleexanayn ujeedooyin kale iyo waxaan khusayna aan u gudbayn oo aan toobiga dhanna uga baxayn gabagabo ku soo xir hadal saameyn leh dadku waxay xasuustaan had iyo goor hadalka marka hadal saameyn leh ku soo xir khudbadaada hadal saameyn leh soo gabagabay wixii aad ka hadashay wixii aad duruucda kaga hadashay aad u farabadnaa soo koob pointiyo muhiim ah marka ha isku dhex qasin hadalkaaga qodob u hadal hordhac marka hore samee duluuc samee gabagaba samee khudbadaadu marka ay nidaamsan tahay runtii dadku aad bay kula fahmayaan khudbadaadu waxay noqon doontaa mid guuleysata marka khudbada dhamaystiran dadku aad bay ku hadal hayn doonaan sababtoo ah maskaxdooda waxaad uga tagtay pointiya runtii ay xasuusan karaan qodobka afraad ee khudbadaada ka dhigi kara mid saameyn leh waxa weeye isticmaal tusaalooyin iyo sheekooyin dadku had iyo goor waxay wax ku fahmaan tusaale waxa aad ka hadlayso tusaalooyin dhab ah waa inaad u soo qaadataa tusaalooyin iyo sheekooyin dadku aad bay u xiiseeyaan dadku way ilaawaan hadal loo sheegay laakiin ma ilaawaan sheeko ma ilaawaan looga sheekeeyay isticmaal tusaalooyin dhab ah tusaale nolol dhab ah ku saabsan oo real life isticmaal ama dhacdo fudud oo fariintaada xoojinaysa isticmaal had iyo goor waa in aad ku dartaa waxa aad ka hadlayso wax xaqiiqi ah oo fakti ah oo khudbadaada saameyn u yeeli kara tusaalooyin dhab ah soo qaado sheekooyin ugu dar dadku lama rabo maanta dhahdeed wax jeediso wixii aadan xiiso aadan tusaalooyin ku darin aadan sheeko ku darin aadan wixii aadan macaaneyn way adkaanaysa dadku inay kula socdaan khudbadaaduna ay guuleysato marka mar walba xoogga saar inaad tusaalooyin dhaba isticmaasho waxa aad ka hadlayso tusaalooyin ku saabsan oo sax ah inaad isticmaasho haddii aad mahmahyo ku dari karto ku dar haddii aad xigmado kale iyo suugaanta runtii soomaaliduna aad bay ugu fahmaan gabay oo kale aad ku dari karto haddii aad mahmahyo ku dari karto fariin kale haddii aad ku dari karto aad bay muhiim u tahay waxa inaad macaaneyso oo khudbadaada aad macaaneyso tusaale waxaan ka hadlayaa fagaara ka hadalka iyo sida dadku ay guuleysan lahaayeen fagaara ka hadalka marka haddaan idhaahdo hadda ka hor baa waxay ugu dhacday anoo dad hor istaaga markaan dadka hor istaagay mikrofoonka lay dhiibay ayaan totally wixii aan ka hadlayay waa ilaawo ciladaas ay qabsatay waxaan sameeyaan garan waaye kadibna waxa way mikrofoonka waa iska dhiibay meeshaan uga tegay problem dhibaato oo adigu ku qabsatay oo dhab aad ka sheekaysay qofkiisana wuxuu isleeyahay biri taasoo kale isku qabsan aad buu xiiseynaya hadda waxa laga yaabaa hadaladii aad tiro dhan inay ilowdo laakiin uu soo xasuusto pointiga macalinku uu sheegay oo ahaa dhacdadii ku dhacday marka dhacdo dadku aad bay wax ugu fahmaan marka taasina waa muhiim isticmaal tusaalooyin iyo sheekooyin dhaxalgal oo waxaaga xoojinaya ugu dambeyn qodobka shanaad oo arki doona waxa kamid ah tababar iyo kalsooni wax aadan tababar ku sameyn waxa aadan ku soo celcelin waxa aadan waqti gelin way adagta inay guuleysato marka muhiim waxa ah khudbadaadu ma guuleysanayso haddii tababar aadan sameyn ku celceli khudbadaada ilaa 2 ilaa 3 jeer ka hor dadka aad hor iman ku soo celceli ku hadal cod cad oo la fahmi karo si aad ugu hadli lahayd soo practice garee ha degdegin mar walba degdeg iska ilaali neef qaado marka aad hadlayso waxaasoo dhan waa muhiim marka aad hadlayso waxa laga yaabaa marka qaarkood inaad cabsadu waa shay dabiici ah dadka ku jira marka waxa la rabaa inaad marka hadlayso neef qaadato isdejiso degdegin wuxuu keenaa marka inaad cabsato ayuu keenaa marka waa muhiim ka hor inta aadan dadka hortagin soo practice garee arday baa tahay jaamacadeed khudbada macalinku kuu diray khudbada waxa laga doonayaa presentation aad jeediso ka hor groupkiina isku imaada galabtii oo kale presentation la jeedinaya galabta suuxii oo kale groupkiina isku imaada waxa weeye arrintii presentation aad jeedinayseen qof kasta ha practice halkaas soo istagaalaya noo jeeda anaga wixii qaladaad laga soco qof kasta qaybtii la siiyay ha jeediyo kalsoonidiisa ha la eego waa muhiim 10 qof oo groupka ka kooban yahay hadii adigu aad wax ka horjeediso oo ay ku siiyaan like oo ku yiraahdaan waxa si fiican baa wax u jeedisay macnaheedu waxa weeye afartanka galaaska fadhiyana biri sidaas ay galabtan ku siin doonaan natiijo fiican marka ku celceli tababarku waa muhiim Ronaldo inuu noqdo laacib adduunka waxa ka horeeyay inuu tababar badan inuu ciyaar xaafadeed soo maray inuu garoomo ku soo ciyaaray inuu muddo soo maray kadib uu shaashadaha qabsaday marka wax walba tababar bay u baahan yihiin iyo kalsooni gabagabo waxaan ku soo gabagabeynaynaa haddii aad rabto khudbad guuleysata kow
ujeeddo cad waa inaad yeelataa faham dhegaystayaasha cidda aad la hadasho waa inaad fahantaa qaab habaysan waa inaad u hadashaa oo hadalkaagu waa inuu noqdo qaab hadal habaysan oo nidaamsan sheekooyin waa inaad isticmaashaa tababar waa inaad samaysaa ay ku soo celcelin inta aad dadka aadan ka hor hadlin intaasi marka waa waxyaabaha ka dhigi kara khudbadaadu mid guulaysata haddii aad khudbada raacdo runtii waxaan boqolkiiba boqol kuu ballan qaadaynaa in aad khudbadaadu wax badan iska bedelaan iyo qaabka wax u jeedin kartay presentationka aad u jeedin kartay qaabka runtii ay aad wax way ugu guulaysan lahaydna pointiyadaas ka caawinaya runtii walaal haddii aad mawduucan wuxuu ka heshay youtube-ka waxaan kaga hadalnaa horumarinta ganacsiga iyo horumarinta shakhsiyadda haddii aad jeceshahay mawduucyada muuqaalkan aad wuxuu ka faa'iiday muuqaalka like noo saar youtube-kana subscribe saar intaasi marka waa dhiirigelin aduguna wax badan baa ka faa'iidi doontaa runtii qaybta sidoo kale public speaking muuqaalo badan baan ka duubnay waxyaabaha cabsida keena waxyaabaha lagu ogaado sida cabsida loo xalliyo waxaasoo dhan waxa weeye runtii muuqaalaan ka samaynay iyaguna waxa weeye playlistiga tegaysa muuqaalada halkaas ka sii daawan karta wax badan bay kaa caawinayaan runtii aad iyo aad baa mahadsan